aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta joogo dalka Finland ee Ruushku u gumaysan jiray una xorriyay maalin maalmaha ka mid ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan shirkii aan ka qayb galay aan kula kulmay dad badan oo indhergarata ah oo Soomaaliyeed. Waxaan raalli ka ahay in aanu isdaafsanay ra'yiyo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa af Soomaaliga, sidii loo keydsan lahaa suugaanta hiddaha ah ee afkii hore laga dhaxlay. Waxaan raalli ka ahay in mahmaahaha anigu aan aad iyo aad u jeclahay ee Soomaaliyeed in la wada jecel yahay, in la doonayo in la barto, in laga salgaaro, in la garto macnaha qotada dheer leh ee ku abuuran. Mahmaahaha aan si aad u jeclahay waxaa ka mid ah nin maqan tebidii waa nin jooga ceebtii. Dad badan oo dhalinyaro ah ma garanayaan macnaha ku qarsoon mahmaahda aan soo sheegay. Laakiin haddii Ali uu joogo oo Maxamed la tabayo, Ali waa maxay? Waa iga su'aal, waa wax matare. Waayo haddii uusan qaban karin shaqadii laga filayay ama laga doonayay, Maxamed weeye nin loo baahan yahay. Rag waraggii hore hadalla waa intuu yidhi. Aniga waxaan kula dardaarmayaa dadka da'da yar ee Soomaaliyeed meelay joogaanba inay si kasta u noqotaba ay u bartaan afkooda hooyo. Af Soomaaligu waa mergii oo kale oo hadba danka loo jiido u jidma. Waa af hoodana erey waliba macno badan buu leeyahay. Waa taa sababta ay aad ugu adag tahay in ajnabigu u barto af Soomaaliga. Aniga waxaan bilaabay barashada af Soomaaliga 50 sano ka hor. Weli kama salgaarin, weli waa si baranayaa. Waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ila bartaan afkooda hooyo ee aad iyo aad u macaan u qurxon. mahadsanid. waad mahadsantihiin idinka mudan. mahadsanid.